hal sano ku dhawaad qiyaastii waa hal sano ayaa dagaalka Hirshabeelle markuu ka bilowday June last year in ahayd baan maleynay sanad baa buuxsamay bishii lixaad bay ahayd bishii lixaad baan hadda joognaa waliba gabagaba sanadkaas guulo waaweyn baa la gaaray xagga dib u xoreynta dhanka xasilinta labadii state oo howlahaas inta badan ay ka dhaceen in ay la muraajaceeyo iyo annagoo dhan oo dowladda federaalka ah iyo hay-adaheedii labadan state oo kale hawsha ku soo socotana ay wax badan ka kororsadaan oo wixii dib u dhacyaa iyo wixii khaladaad oo la soo galay inaysan dib u soo noqon in horta la muraajaceeyo sanadkaas haddii sidii lagu socday ay saxsanaydna in horey loo sii wado haddii aysan saxsanayn oo wax ka qaldanaayeenna wixii qaldanaa oo dhan inta dul istaagno inaan ku saxno gaar ahaan arrinta coordinationka waxaa ka horeeya kaalima dowladda federaalka kaalinteedu muxuu yahay dowlad goboleedka kaalinteeda oo degmadu ay ku jirto iyo gobolka iyo lakabyo dhowra weeye dowlad goboleedku waa dowlad goboleedkii weyneyd waa gobollaha haddana maamulo gobol baa jira oo runtii aniga aan aaminsanahay maamuladaas gobollada inay meesha ka baxaan inay ku fiican tahay oo saddexda lakab aan loo dhaxayn iyo lakabkii degmada saddex lakab oo dowlad goboleedka isku wadato dowladdii federaalka ahayd iyo internationalki lakabyadaas coordinationkooda muxuu yahay qolo walbaaba roolkeedu muxuu yahay inaan doodaheenna xitaa qayb ka mid ah waxyaalaha structuralka oo hadda ma ogtahay shirka siduu nagu socdo mararka qaarkood waxaa ka qaabroon inaan u bedelno wax natiijo noo keenaysa wax ku oola oo la isku ogaanayo xitaa aan la tegayno shirka soo socda oo khamiista dhici doona haddii la yidhaahdo shirka weyn oo fundraising hadda wasiirku uu ka hadlayo internationalkii iyo hay-adihii waaweynaa oo dhan imaanayaan halkaas weeye shirkan waxa ka soo baxana lala tegi doono oo hadda arrimihii hadda wasiirka cabdullaahi uu tilmaamay iyo wasiir ka horeeyay saddex aniga waxay ahayd ramadaan iyo tiimkiisa inay ku bilaabaan maxaa socda deegaanka maxaa ka socda dhibka jira oo haddana haysta waxaa weeye wax annagana loo dhiibaayo ma jiro doonarkii hay-adda implementary uu shaqo u dhiibanayaa waxaasun baan annagu jehjehaynay oo lahnaa war xaggaa ka roon iyo intaa ka roon iyo xaggaa ka roon ayaan dhawatay European Unionka waa la fariisanay intaysan qorsheyn ka hor waxaan nidhi waxaan la ogeyn waxaa ka fiican wax la og yahay lacagta in lagu saleeyo saldhig baa matamaan laga dhisayaa maxaas baa laga dhisayaa waxaa laga dhisayaa aadan yabaal iyo xardheere 4 saldhig bay soo qoreen waa wax la taaban karo oo la og yahay oo cid kale ay soo dhawaaneen waxay soo qoreen ceelal biyo oo 4taas degma waxay soo qoreen lighting oo 4taas degma iyo tuulooyinka qaarkood raacsan wax la yaqaano la og yahay oo looga tashanayo way niis baa loo dhiibay oo halkaan joogtay oo lagala rabaa in lagala xisaabtamo buundada buulo bardaa la burburiyey qola qaadatay assessmentigii waa dheer yahay buundo in la keeno iyadoo dhan laga guuraa la yiri ma sahlana marka waa la lacagteedii wixii waa la soo approval gareeyay laakiin reer buulo barda uma muuqato buundadii waayo ma bilaaban uma muuqato weli ma aysan bilaaban waa sax bisha agoosta ayaa ugu horeysa in la bilaabo khubaro waaweyn dalkeennaaba waxa laga waayay qof buundo dhisan aad marka ay leeyihiin ayaga maahan qalabkii loo buundo lagu dhisa lahaa dalkeena laga waayo waxa lagu leeyahay marka baa wuxuu ka soo wadaa wadan hebel Latin America ku yaala alaabta halkaas waxa taasna waa mid oo waxa weeye nimanka lacagaha deeqaha bixiyaahi waxay siiyaan hay-adaha implementaries annagu marka daawadayaal ayaan kana structure-ka cusub iyo qaabka hadda aan cusub waxay tahay prioritization-ka annaga mudnaanta meelaha noole inaan dhahno degmada aadan yabaal ama degmada jilib tusaale ahaan weeye
waxay u baahan tahay intaasoo shay horta in la qabto way la buuxiyo aan nusqaan looga tegin meesha ceel baa laga dhisayaa saldhig biyaa laga dhisayaa waana laga tegayaa hadhowto beeshii oo nusqaana oo bargo ah dadka qaarkood siday u yaqaanaan ayaa laga tegayaa taasna waa midda coordination hawsha hadda soo socota wixii aan ka barannay lagu soo bandhigi doono wiigan wasiirayaalow arrinta u dambaysa waxay tahay coordinationka madaxweynayaashii wasiiradii qof walba hay-ad walba waxay leedahay waxaan ka shaqaynaa stabilization baan ka shaqaynaa xasilin baan ka shaqaynaa qof ka shaqeeyaana ma jiro qof shaqo qabtaana ma jiro kullina waa laga wada shaqeeya adduunkii humanitarian baa lacagtii badankeedii Soomaaliya la siiyey meeshii la rabay lacagta bini aadamnimada la sheegay in la siiyey in loo xawilo in ka mid ah xasilinta oo bini aadamnimadii ka weynba deegaankii ma lagu noqon karaba haddaan serviceski loo baahnaa laakiin raashin qalalan ayaa waxaa lagu leeyahay bilyan iyo bar 2 bilyan baa ku baxday xasilintiina 10 milyan wax leeg ayaa loo hayaa halkaasna waa meesha hadda wasiirku uu sheegay fundingka iyo fundraisingka muhiim way hadda marka waxaa laga shaqeynayay in sanduuq loogu shubo xasilinta wixii fan ah oo ay helayso loogu shubo iyo degmooyinkii in prioritization inta loo sameeyo la yiraahdo Hirshabelle iyo Galmudug 8 degmo tusaale hadda waxaa laga shaqeynayaa 4 degmo tusaale oo wax allaaliyo wixii service u baahnaayeen oo loo dhameystiro taas waxay caawinaysaa degmooyinka la xoreyn doono oo Koonfur Galbeed iyo Jubbaland marka guud ahaan waxaan ka wadaa annagu de meel waxaan isku eedno tiro badan ma yaalaane waxaan rabnaa dadka wax bixiya inaan qaabayno qaabka aanu la xiriirayno iyo waxa ay noo qabanayaan inay yihiin wax annaga naga soo fulo wasiiro oo aysan ahayn wax xafiisyada laga go'aamiyey ama annaga oo aan kala hadlino wasiir Karoore markuu arko uu yiraahdo meeshan ceel baa looga baahan yahay marna madaxdiisii ka sareysay inta la arkay yiraahdo iskuul baa loo baahan yahay mar annaga intay is aragnaa aan meesha caafimaad bay u baahan tahay oo wareer inta lagu wareer markaa kadib marka intaas sameeyaan oo intaas oo dhan la sheegay garoon ciyaareed ayaga sameynayaan oo asadii la sheegay midna aan ka hayn waa dhacaysa ya marka arrintaasna waa waxyaalaha hadda aan rabnay inaan iska daaweyno runtii marka waxaan rabaa inaan ku soo gabagabeeyo shaqaf weyn baa noo taala sanadkaasna sanad wax lagu baran karo awal de qiimeyn noocaan oo kala ma dhici jirin hadda waxaan rabnaa 3 biloodba in dawlad goboleed la isugu yimaado sidii la sheegay hadda Jubbaland ma runtii noo bilowday waliba si weyn bay ku bilaabatay dawlad goboleedyada kale waa ka dhici jireen laakiin levelku waa yaraa laakiin waxaan rabnaa 3 biloodba iyo xilligii la isku waafaqaano 3 bilood ma u dhahayo laakiin xilli fiican oo la isku imaan karo waqti wax la qabteen oo u dhaxayn karo ayaa la rabaa ilaa 6 bilood buu noqdo sanad laba gaarsiin kare coordination kan waqti inuu yeesho hadba meel lagu qabto in wax ka soo baxaan baa muhiim ah meesha lagu qabtay nin baa shalay wuxuu yiri meelihii la xoreeyay in lagu qabto meelihii la xoreeyay Kismaayo ka mid ah 10 sano ka hor Soomaaliya marka dhowrkii biloodba meel review inta lagu sameeyo dawlad goboleedka maxaan rabnaa annaga waxaa laga rabaa qorshe ilaa madaxweyne xafiiska madaxweynayaasha ilaa gudoomiyaasha degmooyinka gudoomiyaasha gobolada iyo degmooyinka ay og yihiin oo qasab ay tahay sida hadda Jubbaland buugaan qoran oo kale oo JSS stabilization priorities kaas oo kale in inta la keeno qorshaha aan lagu daro haddii dawlad federaal ay ka shaqeynayso iyo haddii madaxweyne meel u tagayo iyo haddii cid kale u tagayso waxay gadaysaa qorshahaas ay leedahay dawlad goboleedku ay leedahay qaabka coordination kana qaab baan kulay loo frame gareeyay ra'yigiina ka dhiiban doontiin wasiirow shirkan Jubbalandna runtii bilow fiican buu noo noqon doonaa waana meeshan ka indilaaqaynay marka aad iyo aad baa u mahadsantihiin waxaan rabaa khiyaarta kale inaan ku wareejiyo